nabadoon Siciid Maxamed Cusmaan oo kamid ah nabadoonada gobolka Nugaal ee Puntland oo dhawaan lagu caleemo saaray degmada Buurtinle ee gobolka Nugaal ayaa magaalada Garowe ee xarunta Puntland waxa uu qada sharaf ugu sameeyay qaar kamid ah ismada nabadoonada waxgaradka maamulka degmada iyo kan gobolka iyo qaar kamid ah qaybaha kale ee bulshada gobolka Nugaal waxaana ujeedka qada sharaftaasi ahayd isbarasho iyo shaacinta mas'uuliyadda nabadoonnimadiisa ee dhawaan loo caleemo saaray qada sharaftaasi kadib waxa warfidiyeenka la hadlay qaar kamid ah ismadii iyo nabadoonadii iyo marti sharaftii kale ee ka soo qayb galay Siciid oo kamid ah qabanqaabiyaasha kulankan qada sharafta waxa uu ku dheeraaday ka sheekeynta muddadii ay ku qaadatay soo xulidda nabadoon Siciid Maxamed Cusmaan iyo saldanada nabadoonnimo ee soo jireenka ah ee qoyska iyo jifida nabadoon Siciid Maxamed Cusmaan bacda salaam nabadoonku inta hadda bishan aakhirkeeda dambe ahayd waxaanu ka shaqaynaynay nabadoonka inaanu soo xulo soona magacawno arrintaasi waxay ka bilaabatay degmada Buurtinle jilib ahaan ama family ahaan sida taqaaneen nabadoonadu qolay ka soo jeedaan oo ay ku magacaaban yihiin magaca ka yimaadaan waxayna u shaqeeyaan dadka oo dhan cidii markaas la falgali karto oo ay arrintooda tawalli karaan la shaqeeyaan waxayna la shaqeeyaan oo hoos tagaan sida aad la socotaan nabadoonadu ismada bay la shaqeeyaan maadaama marka xagga ninka lagu soo doortay nabadoonka Siciid Maxamed Cusmaan sida la socotaan magaaladana uu yahay magaaladii uu ka soo jeeday asalahan oo u deganaa isaguna uu deganaa oo ka soo jeeday asalahan waxaanu dooranay mar saddexaad laba xafladood waxaan ku soo dhignay inaanu halkaan xafladda saddexaad ka sameeyno si magaalada xukuumadda iyo ismada iyo nabadoonada iyo dadka degmada oo dhan ay mar saddexaad noola doortaan intaas baan ku soo koobayaa nabadoonku waa Siciid Maxamed Cusmaan abeen nabadoon buu ahaa isaguna waa nabadoon hada la calaamad saaray awoogiisna nabadoon buu ahaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabadoon Khalifa oo Cali oo kamid ah nabadoonada gobolka Nugaal ayaa soo dhaweyn iyo bogaadin kadib waxa uu sheegay in ay la shaqeynayaan nabadoonka cusub isla markaasina garab istaagi doonaan nabadoon Siciid hadda waxa weeye nabadoonadu hadba xafladda say u soo wadeen marka kan hadda waxaan u malaynayaa annagu ka sabata baxnay laakiin ragga damo nabadoonnimada rabaa inay ku adkaan doonto qaabka xafladaha loo dhigayo iyo qaabka wax loo kharash garaynayo rag badan inay ku adkaan doontaan u malaynaya waxaan kaloo cabsi badan ka qabaa nabadoonku isimadu naga dhex galayo hadhow inaan ka soo dhex saari weyne marka waxaan islahayn idinku idin dhex fadhiisan doonaa mar hadduu ismadii dhex fadhiistay xafladda quruxda badan la dhigay waa xaggaas u jira inta haddaan yiri waqtiga soo gaabi baa la yiri way iska soo gaabinayaa dhammaantiin waa salaamantiin mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad baan nabadoonka u soo dhawaynaynaa waana la shaqaynaynaa hadduu xaggaa ku biirana waxay la tahay ismada xil ka saaraya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xogayaha dowladda hoose ee degmada Garowe Cabdiqafaar Cabdiraxmaan Axmed oo ku hadlayay afka degmada Garowe ayaa isaguna waxa uu ballan qaaday inay ka degmo ahaan la shaqayn doonaan munaasabadda qada sharafta oo ay ka soo qayb galeen abwaanin waxaa laga soo jeediyay gabayo ka hadlaya kaalinta nabadoonada iyo ismadu ay ku leeyihiin bulshada dhexdeeda nabadana godde lagu rido gabi ku soo iyaga gorfeeyo waqood soo gunaanadaaye ujeedada gunteediyo haddan goboda falleeyo soryadan gobeediyo golahan gelaya taariikhda nabadood Siciid gacamayo goobtan nala jooga gacmay waxaanu leeyahay naanaysta dheer meel fog baa ka maqlay dibadaha ka sari waxba la jooga nabadoon Siciid Maxamed Cusmaan oo munaasabadda qada sharafta u sameeyay isimada iyo nabadoonada oo ka hadlay munaasabadda waxa uu sheegay inuu xoog saari doono cadaaladda oo ka shaqeyn doono danta iyo maslaxadda ummadda Soomaaliyeed waxa khasab igu noqotay magaaladan oo dadka ugu badan aan ka aqaan baan habeenan ka bilaabay laakiin qoladii Buurtinle qabsatay khasab bay noqotay marka in dadkaanu halkaan aan ku casuulno oo ismadii fadhiyaan oo odayaashii fadhiyaan oo dagaankii fadhiyo mana ii hal jifiye waxaan ahay dadkoo dhan baan oday insha Allah u noqon doonaa waxaana laygu imaan doonaa cadaalad iyo inaanan qof la jirsi samayn ilaahayna waxaan ka baryayaa inaad igu ducaysaan inaan cadaabta alla igu geeyo Islaan Ciise Islaan Maxamed oo gabagabadii munaasabadda ka hadlay waxa uu kala dardaarmay nabadoonada iyo jifidii soo caleemo saartay nabadoonka cusub in la shaqeeyo ee aan isaga culays kala saarin dad galabta ka dhaqaaqdaaniin intaad wax u dhiibtaaniin oo aydan waxba ku darsan ama Soomaali anigu waa aqaanaayo
maantana hadda kaba sii duwano waxyaalo badan oo aan isleeyahay ummadda maraka joogta waaba lagu taqdiirayaana ay jiraaniin aad tidhaahdaanin war waxaan noo qabo uu yidhaahdo suurtagal maaha labada lugood baad lagu dhagaa dadka maanta jooga qofkii xil loo dhiibo bay u badanta haddaad marka labada lugood ku dhegtaaniin intaa bad ku ridaaniin hadda ogaada ragga la rabaa inay ka soo saaraaniinna idinka weyn marka waxaan leeyahay intaydaan badna ku ridin lugahana ku dhegin yaa oo hawsha ay bannaantaal tahay yaa qaybta aad leedihiin ka qaata isagu iska qurux badnaanaya idinkuna waxa aad rabtaaniin baa ka helaysaan cabdifataax cabdulaahi kalsan TV garowe